waa nin dhalinyaro wariyaasha magaalada Qardho kamid ah maanta ayaa lagu xiray saldhigga degmada Qardho haddaba sababtii loo xiray iyo cidii ka dambeysay xarigiisa ma raba inaan ka daba geeyo sidoo kale waxaan rabnaa ka daba tagno madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ahna musharax Soomaaliya maanta khudbad buu jeediyay khudbadiisa ma raba inaan ka daba geeyo sidoo kale xalay magaalada Qardho waxa lagu qabtay xaflado lagu kala taageerayay Saciid Deni iyo Farmaajo mid way guuleysatay midna way guul dareysatay haddaba tii guul dareysatay barnaamijka ayaan kula wadaagi doonaa mar kale soo dhawaada waxaan u gudagalno Saciid Cabdullaahi Deni maanta khudbad baarlamaanka Soomaaliya u jeediyay codka ku weydiisanay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سؤال هذا دعوة ديال حبيبي ونكسن وبرنامج كني فلاقين تعليمها السياسة ده وحرب عاونة اللي كده بجيه صور كاس كذا كاركتان وأنا نيرا ورياش بقعد قرر كم ده أنت يا لجوح رسالة قدك مدة قبله هذا صوبت الله حري يغدي كده مسحاري استمرار وأنا اللي كده بجيه سيدو كله وحرنا كده بتقنع madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ahna musharax Soomaaliya maanta khudbad buu jeediyay khudbadiisa ma raba inaan ka daba geeyo sidoo kale xalay magaalada Qardho waxa lagu qabtay xaflado lagu kala taageerayay Saciid Deni iyo Farmaajo mid way guuleysatay midna way guul dareysatay haddaba tii guul dareysatay barnaamijka ayaan kula wadaagi doonaa mar kale soo dhawaada codsi iyo xasuusin marka hore hadduu muuqaalka soo gaaro waxaan si xushmad leh ka codsan inaan leeg noo saartaan oo si share gareysaan asxaabtan la wadaagtaan bogga hadaad ku cusubtahay follow YouTube ka subscribe commentigu ku wada hadal menu aragtidaada soo dhawaada mar kale ninkan dhalinyarta oo gadaashida ka aragtaan waxa la Cabdicasiis Haybe Ibrahim sheekeeye wariyaasha magaalada Qardho kamid ahaa khaasatan wuxuu kamid ahaa wariyaasha SBC maanta ayaa isaga xafiiskiisa loogu yimi ciidan xafiiskiisa ka kaxaysteen saldhigga magaalada Qardho ayaa lagu xiray sidoo kale waxa la sii qaatay qalabkii xafiiska oo la sida kombiyuutarro iyo kaamirooyinka sababta ninka dhalinyarta loo xiray oo qalabkiisa loo qaatay waxay ahayd in dad taageersan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xaflad taageero xalay ku Qardho ayuu ninka dhalinyarta soo duubay sidoo kale waxa xalay Qardho lagu qabtay xaflad lagu taageerayay musharax madaxweyne Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni si qurux badan sharaf badan oo dad badan ka soo qayb galeen oo laga khudbadeeyay oo baraha bulshada dhigay oo si sharaf leh bay u soo dhamaatay tii Farmaajo lagu taageeray sababta loo joojiyay ninka dhalinyarta qalabka looga qaatana maxay tahay insha Allah waa isla falaqeyn doonaa horta ninkan dhalinyarta ah dadka xirtay Saciid Cabdullaahi Deni musharax Soomaaliya asagoo u tartamaya madaxweyne sababta waxba kama ogaa waa aragtideeda waa nin mashquulsan oo madaxweyne raadinaya xildhibaano shukaansi hawlo kale waxa ku mashquulsan laakiin dadka xiraya ninka wariyaha ah oo le Farmaajo maxaa taageerada ugu duubtay maxaa u soo duubtay maxaa u tagtay ومقعد يبهدلها waxaa ognahay xaflado kala duwan in Puntland gudaheeda lagu qabtay oo Farmaajo lagu taageeray wad joojisay iyo cod hor istaagtay ma jirin magaalada Qardho dadkii wariyaha xiray waa ceebeeyeen baran baa lagu qabtay Boosaaso magaalada Garowe caasimadda Puntland baa xaflad lagu qabtay magaalada Qardho marka waxaan leeyahay dadka jooga oo reer Qardhoodka oo dadka xirxiraayay dadka u cagajuuleynayay iyo aniga maanta waxay soo wacay nin madax Farmaajo wuxuu duubtay shacab baa wareysatay balaa kida war waxba ma wareysan baa kale hataa Farmaajo dadku aragtidooda anagu afka uma gelino qofku Deni buu taageeri karaa Farmaajo taageeri karaa Khayru taageeri karaa Xasan Sheekh Maxamuud buu taageeri karaa qofku fikirkiisa waa xor laakiin afka laba qabanayo Puntland oo leena dimuqraadiyad baan gaarnay barnaamijyo waxaan fikirku waa xor xisbiya ka jira urur siyaasadeed baa ka jira in maanta wiil soo duubay xaflad Farmaajo lagu taageeray laga hor istaago waxa ognahay dhalinyarada reer Puntland magaalada Muqdisho xaflad ku qabsanayeen Saciid Deni bay soo taageerayeen cid hor istaagtay iyo cid ka qabatay iyo cid si xaflada hotel u kireysteen hotelkooda ugu soo qabsadeen wali waxa ognahay magaalada Muqdisho raga gudoomiyaasha kamid ah sida Cali Yaro kale inay maamulka Puntland iyo Saciid Deni ay xifaatan ka dhaxayso is hayaan xaflada joojin kari hotelku ka meelin kari wuxuu xir kari wariyaasha xaflada duubay laakiin Puntland waa ku ceeb khaasatan wixii Qardho ka dhacay magaalada sumcadeeda uma fiicna aragtida iyo fikirka iyo hadii aan la ixtiraameyn taas waa wax ceeb ah waxa rabaa magaalada Qardho saayid sheegay Farmaajo taageero lagu qabtay xafladii waa la joojiyay marka hore bal aan wax yarta fiirino xafladda Deni sida ay u dhacday quruxda badan dadka soo qayb galeen oo cayaar dhaqameed suugaana laga soo jeedinayo aan daawano sida qurux badan sharafta ay u dhacday
الفيدي دني حفلة دي سي قرح بدن والله مشرح دني نوا مشرح فرماجنا ومشرح حفلة دني والله بلي تي فرماجنا والله جوجي دتك والله عقل جولي تنان فيرينو فرماجو ولي حتى هوتيل لوغو ما قبان حفلة waxa loogu qabtay guri baa loogu qabtay kilib yar ila daawado oo dumar buraan buraaya telefoon laga adeefin shacabka ku doonayee farmaajo adeefin shacabka ku doonayee adantii umadiyo adahan dacad kugu hubnaa adantii umadiyo adahan dacad kugu hubnaa edayaxa noo soo iftiimowda waxaan rabnaa intaan kaga baxo xafladii xalay farmaajo dani qardho taageeris lagu qabtay midna guuleysatay midna guul dareysatay tii guul dareysatay lagu hor istaago farmaajo lagu taageeray dadkii hor istaago wariyay xiray magaalada taas oo qeyb bay ku tahay iyo sumad xumay ku tahay dadkii waxa sameeyay madax iyo wax isugu jiraan dad shacab oo aan xilal hayn laakiin dababooda madaxda oo daaha gadaashiisa jooga oo bay joogan intaasan kaga gudbaynaa taas magaalada qeyb bay ku tahay waa la qeybay fallan muuqaalka ay sheer garay dad baan u doodaynaa xirano saldhig ku jiray xabsi oo xaqdar lagu haystay falan sii sheerkaray waxaana u gudagno Saciid Cabdullaahi Dani maanta khudbad baarlamaanka Soomaaliya u jeedi codka ku weydiisanay khudbadiisu 15 daqiiqo musharax kasta leeyahay 15 kiisa uu ka faa'iideystay waxyaalo kala duwan buu ku khudbadeeyay waxaan rabnaa inaan laba qodob ka soo qaadano midda koowaad waa xorriyadda hadalka buu yiri baan dadka xorriyo fikirkooda waa dhiiban karaan waa kan iyadoo qardho maanta wariye lagu xiray sababtan ah aragti dad soo duubay laga hor istaagay marka xorriyadda bal hal is waafajiyay Saciidan wuxuu yiri xorriyaddan ka shaqeynayna qardhana oo uu ka soo jeedana waa xaflad barnaamij lagu taagay waa la joojiyay aan is waafajino dabaaldinka dadweynaha daawanaya barnaamijka fikirka Dani hadalka Dani iyo wariyaha qardho lagu xiray bal xorriyadda iyo cadaaladda is waafajiyay Dani hadalkiisa cadaalad darro waxa maanta dawladnimadeenu u dhutunaysaa cadaalad la'aan suurtagal ma aha in aynu helno amni buuxa siyaasad xasiloon horumar dhaqaale inta ay jirto sharci darro iyo cadaalad la'aan in ay muwaadiniinta Soomaaliyeed u doontaan argagixisada al-shabaab cadaalad inama qabato dawladnimadeenna ma qabato baarlamaanka Soomaaliyeed ma qabato ummadda Soomaaliyeedna uma qalanto waxaa waajib nagu ah in nidaamka cadaaladeed ee aan wax ka qabanno si ay dadkeennu u helaan adeeg cadaaladeed oo ay dadka Soomaaliyeed ku kalsoonaan karaan sidoo kale dan inta khudbada jeedinayo waxyaalo ka hadlay waxa kamid ah wuxuu yiri kaashkan soo nooleynayna xooga ayaan saarayna annagu aan ognahay intii Puntland maamulaya kaashkeedii lacagta shina Soomaaliga meelaha lagu sheego maanta wuxuu ku khudbaday kaashka shina Soomaaliga wax ka qabanayna waa soo nooleynayna waatan aan wada daawan waxaan ballan qaadayaa in la helo lacag shina Soomaaliya oo leh qiimo sugan oo ay ka shaqeyso dalka oo dhan si isla markaas loo ilaaliyo siyaasadda lacagta dalka gabagabadii inta ayaan caaw jeclahay falaaqaynta arrimaha siyaasadda iyo musharaxiinta inaan ku soo gabagabeeyo caaw inaan musharax inta ayaan jeclahay ku soo gabagabeeyno oo aan ku soo qaadanay wariyaha qardho lagu xiray iyo Saciidan khudbadiisii xafladii farmaajo taageeridii Dani qardho lagu qabtay arrimahaas aan falaaqaynay falan muuqaalka kan dug soo gaar aragtidaada qaybta commentiga ku soo dhiibo like-tu waa noo muhiim oo dad badan inuu muuqaalku gaaro inaga saacidaysa bogga hadaad ku cusub tahay follow YouTube ka subscribe habeen wanaagsan